Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan daawadayaal kusoo dhawaada qubanaha xaqiiqda wararka caalamka iyo Soomaaliya. Qodobada aad ku daawan doontaan haddii barnaamijku ka noqdana waxaa qayb ka noqonaya 65 jir ka tirsanaa ciidamada cirka ee Mareykanka oo ahaa macallin diyaaradeed oo dacwad sharci jebin ah lagu soo oogay. Sida la sheegay, diyaaradaha ka shaqeeya Iiraan ayuu si hoose u farsameynayay. Maxay tahay sababta keentay waqtigan in ninkan xabsiga loo taxaabo? Sidee buu Mareykanku ka yeeli doonaa? Iiraan se ma u noqon doontaa badbaado maadaama shakhsigan magacooda lagu ajaafeynaya? Waan isla eegi doonaa halkiisa iyo weliba meesha uu ku dambeeya. Bernie Sanders iyo weliba Markwayne Mullin oo ka wada tirsan aqalka Senate-ka oo hanjabaado culus isku diray xilli xalka Mareykanku uu u muuqdo in gebi ahaanba uu geli doono dagaal culus. Waa kuma cidda ka shaqeynaysa arrintaasi in meel xun ay gaarto. Dhinaca kale, waxaan isla eegi doonaa duqeyn ka dhacday magaalo ku taala Ruushka oo sababtay 100,000 oo guri oo markaasi gebi ahaanba ay basbeeleen. Yaase ka dambeeyay duqeynta? Maxayse tahay waqtigan dagaalka ka cusboonaanayo Ukraine iyo weliba Ruushka? Sababaha la xiriira lagu tilmaamay ayaa la sheegayaa in gebi ahaanba halkaasi xiisadu mar kale cirka isku sii shiriir doonto. Xagee ayuu marayaa xaalka bariga dhexe Iiraan iyo Mareykanka? Weliba Mareykanka mar kale ayuu fariin diray oo ku aadan in 15 maalmood ilaa 10 maalmood wixii ka dambeeya gebi ahaanba Iiraan uu ku qaadi doono weerarka. Qodobadaasi weliba wixii kale nagu soo kordhayaan ku qaada ligi doona. Saaxiibayaal idinkana nooc cimaamada channelka subscribe-ta noo saara, like-tan saaxiibo fara badan inuu tusay saaxiibada hore inoo joogo muuqaalka noo like gareemasan. Ku soo dhawaada mar kale Sharif Show. 65 sano jir ninkan oo hore ugu tirsanaa ciidamada cirka ee Mareykanka oo ah macallin diyaaradeed ee dagaalka F-35 loo yaqaano Light Height Elan ayaan markaasi lagu xiray kadib markii lagu eedeeyay inuu caawiyay tababarana siinayay ciidamada cirka ee Iiraan iyo weliba sidoo kale Shiinaha. Garland Inderborn George oo da'diisa markaasi lagu qiyaasay 65 sano jir ayaan markaasi lagu xiray magaalada James Held Arbacadii, waxaana markaasi lagu soo oogay dacwad ku saabsan lana xiriirta jebinta sharciga hubka Mareykanka ee Amber Airport Control Act la yiraahdo. Dowladda Mareykanka waxay markaasi ku eedeynaysaa in uu si buuxda tababaro la xiriira ee duulimaadyada farsamooyinka military u siinayay ciidamada cirka Iiraan iyo weliba sidoo kale Shiinaha ee People Liberation Army Air Force loo yaqaano. Xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka ee USA Antor Office and Direct Columbia ayaan markaasi lagu sheegay in ficil weliba aad u guracan uu ku dhaqaaqay ninkan iyada oo sanadii 1996 isaga oo markaasi haysta darajada Macho Power. Wuxuu markaasi 24 saacadood uu ka tirsanaa United States Air Force oo inta badan markaasi u shaqeyn jiray. Waxaana hadda lagu soo oogay in gebi ahaanba uu la shaqeeyay ama si weyn gacansiin ula yeeshay ciidamada cirka ee Iiraan, kuwaasi oo loo diyaarinaya ama loo carbinaya inay qayb ay ka noqdaan weerarada ka dhanka ee Mareykanku uu qorsheynayo inuu ku qaado gebi ahaanba Iiraan, taasi oo la tilmaamay waqtigan in tallaabo weyn uu ka geystay. Haddaba halka ay geeyeen Mareykanka tallaabada Iiraan ay u qaadi doonto waan isla eegi doonaa qubanayaasheena kale haddii barnaamijku ka noqdo. Waxaan sidoo kale eegi doonaa Bernie Sanders iyo weliba sidoo kale Markwayne Mullin ayaa si kulul markaasi isugu hanjabay ama aqalka state-ka iyagoo Mareykanka ka khudbadeynaya fariimo culusna isweydaarsaday xilli xiisada Mareykanku u muuqda in ay cirka isku sii shareeraysa. Labadan senator ayaan horey ugu caanbaxay murano markaasi ka dhacay dhageysiga waa Senate-ka markaasi intii uu socday dhageysiga standardka. waxaan markaasi joojiyeen mulkin in xilka uu markaasi uu ka hayo isbedelna lagu sameeyo, taasi oo keeni karto waqtigan in Mareykanku xulfaysigiisa ka dhankee uu ku qaadi karo Iiraan iyo weliba sidoo kale dadaalada uu dalalka kale ugu jiro sidii gebi ahaanba ugu beegsan lahaa, iyada oo markaasi Bernie Sanders uu si weyn u difaacay in dagaal waqtigan Mareykanku uusan u habboonayn, laakiin haddii Mareykanka uu qaadan ay wejigabax uu kala kulmi doono. mana jirta ayuu yiri qorshe kasta oo lagu difaaci karo Mareykanka maanta, meel kasta isaga ayaa cagaha kula jirto, qaab aan inagu markaasi u difaacnana ma jirta ayuu yiri. Halka markaasi senator kale uu dhagaha uu ka jafay oo welibana uu ku tilmaamay in uu yahay cunsuri oo ka soo horjeeda Mareykanka isaga oo dalkiisana inkiray uu ku tilmaamay. Haddaba labada